wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliya Yuusuf Maxamed Cabdi oo weliga agaasimaha guud ee wasaaradda iyo waliba madaxda kala duwan ee wasaaraddaasi ayaa waxa ay maanta ka qayb galeen kulan tababar socday muddo 2 cisho ah loogu soo xidhayay maamulayaasha kastamada Soomaaliland. kulankaasi ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay agaasimaha guud iyo waliba madaxda kala duwan ee ka soo qayb gashay kulankaasi oo sharaxay ahmiyadda uu leeyahay kulankani oo shaqadeena wax ka bedeli karta waana qodobka ugu muhiimsan aynu shalayna isku dardaarnay maantana aynu isku dardaarayno in aynu wax badan aynu kala hadhno khibradda way noo keeneen tababarkii way nala garab taagan yihiin laakiin inagay tahay inaynu kala hadhno oo aynu ku shaqeyno mudan wasiir waxaan ku ballan qaadaynaa in tababarka wixii loo dhigay maamulayaasha iyo maamul ku-xigeenada iyo guud ahaan wasaaradda maaliyadda inaan dhaqan gelin doono oo heer farsamo aan u daadejin doono waana uga mahad celinaa wasiirka sida fiican iyo tiimka wasaaradda guud ahaantood sida fiican ay noogala shaqeeyeen hirgelinta tababarkan iyo barnaamijyada istaba socda ee la xiriira nidaamka casriyeynta horumarinta maaliyadda dalka. mudane wasiir halkan waxaa ka socday 2 maalmood ugu dambeeyay workshop ku saabsanaa declaration-ka ama foomka cadeymaha iyo maareynta khataraha maamulka lagu baranayay oo ku baranayeen dhammaanba maamulayaashii kastamada oo ka kooban 19 maamule ee halkan ku hor fadhiyaan. maanta waxaa sharaf inoo ah mudane wasiir inay maamulayaashii dalka kastamada dalku ku hor fadhiyaan iyagoo oo u gudbin doona aqoontii iyo wixii ay ka kasbadeen goobtan kula noqon doona kastamadoodii iyo shaqaalahoodii. wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa si rasmi ah u soo xidhay kulankaasi isla markaana waxa uu ku dheeraaday muhiimadda uu kulankani u leeyahay maamulayaasha kastamada Soomaaliland. wixii dhinaceena ah inaan dadajino oo aan ka soo baxno oo ay noqono dad la aamini karo nidaam dawladnimo oo sax ah iyo waxa xeerarka iyo shuruucda ay sheegayaan ku dhaqma. kastamadu shaqada ay qabtaan oo kaliya inta badan maaha cashuur ururin oo kaliya functions fara badan bay qabtaan shaqooyin fara badan bay qabtaan oo toos la xiriira amniga oo toos la xiriira deegaanka oo toos la xiriira caafimaadka dhammaan waajibaadka qaranka aynu hayno ee laga rabo qof kasta oo madax ama sarkaal ama shaqaale wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waaxda kastamada ah waa inaynu ka soo baxnaa haddii ay baydmo. kastamada waxay u qaybsan yihiin kastamo xuduudda taxan qaar badda taxan iyo qaar eeraboodada taxan iyo qaar gudaha oo caloosha dalka taxan oo barahubineed ama checkpoints la yiraahdo mid walba shaqadiisa inuu qabsado ayaanu doonaynaa. waxaan doonaynaa shaqaale iyo madax aqoonta iswidaarsada xogta iswidaarsada iyo dad si family ah oo caylad ah u wada shaqeeyo isku niyadsan haddii ay baydmo. waxaa ogtihiin in xeerar cusub la ansixiyey sanadkii ina dhaafay 2016 xeerarka waxaa ka farcamaya xeer nidaamiyayaal iyo qorshayaal iyo siyaasado markii hore laga soo dhigtay. xeerarka ina akhridaan u gudbisaan qof kasta oo ka tirsan wasaaradda horumarinta maaliyadda gaar ahaan waaxda kastamadu waa inuu xeerarka akhriyaa fahmaa xeer nidaamiyayaasha akhriyaa fahmaa strategies-kana fahmaa waayo isbedeladu ama reformku wuxuu ka socdaa dhinacyo badan dhinac qura ma aha. Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.